gudoomiyaha degmada Caabudwaaq Mahad Cumar Cilmi oo ka hadlay munaasabad lagu soo bandhigay waxqabadka hay'adda Meris ayaa sheegay in maamulka degmada Caabudwaaq ay diyaariyeen isbitaal loogu talagalay karantiilka iyo la tacaalida laga helayo caabuqa coronavirus. Waxaan rabaa in yar inaan ka hadlo barnaamijka coronavirus oo adduunka oo dhan saameeyay ka deegaan ahaan runtii aad moodo in aynu sugayno qolo noo iman doonto oo wixii aan rabnay oo dhan noo samayn doonto qaabka aan u muuqanaa waa sidaas mana jirto cid waxa ay u baahan tahay loo keenaa ma jirto ilaa iyadoo ay wixii la timaado waxna loogu dara maahe waxaan rabaa marka inaan fursaddan kaga faa'iidaysto isbitaalkii sida emergency ahaa ciddii barnaamijkaas coronavirus la xiriira loogu karantiili lahaa waxaan u astaynay isbitaal ku yaala xaafadda Ubax gadaalkeeda ama qajafaabir dhinaceeda marka la yiraahdo oo runtii magaaladana ka yara maxagagan diyaar ah waana shay kaliya aan isleeyahay wuxuu sal u yahay haddii qofku uu haysto hadduu wuxuu la yimaado boqolkii hadduu 20 la yimaado 80 kale moogtahay waxbaa laga oran karaa laakiin ummadan baynu nahay waxna ma aynu diyaarsan ama ba sax ma aha runtii waa wax laga fiican yahay isbitaalkaas waa inoo diyaar wixii inta dheer iyo faahfaahintooda iyo wacyigelinta caafimaad sida looga hortagayo iyo sida looga dadaalayo arrimahaas qof kasta oo wax garanaya inuu gaarsiiyo qof bulshada waa muhiim inta aanu isla wada garanaynana waa wax faraxal iyo saabuun iyo ku salaysan waay in dadku faraxasho saabuun ku faraxasho in dadaalka ugu muhiimsan intaas noqonaya wixii inta dheer waa dadkii loo tababaray baa shaqadaas qaban doona bahdii caafimaadka ana way fadhiday agaasimaha caafimaadka heer degmo uu joogaa kullee isaga faahfaahin doona waqtiga ku aadan haddii Ilaahay yiraahdo aad iyo aad baad u mahadsantiin dhamaantiin hadalkan gudoomiyaha ayaa ku soo aadaya xilli uu dunida uu saameyn xoogan ku hayo caabuqa coronavirus dhanka kalena Soomaaliya laga helayo kiiska ugu horeeyay Faadimo Kaamil Faarax telefishinka caalamiga CWTV magaalada Caabudwaaq.